anigu waxaan ku dhaawacmay meel bedel wanaag agteeda ah anigoo hargeysa ku soo socday cadaadley soo qabsaday oo cadaadley xoreeyey oo aanu rag badan ahayn xoreeyeyda dadkii ciidankii xoreeyey baan ka mid ahaa taliyaashii baan ka mid ahaaye ayaa dayuurado hargeysa ka kacay nala kulmeen halkaasay nagu garaaceen anigu ciidankii berbere gelayay baan ka noqday taliye waqtiga 1991 ciidankii ugu horreeyey dalka soo galay ee berbere qabsanayay ayaan taliye ka ahaa oo la odhan jiray saldhigga 17aad yaa hogaaminayay dagaalada qof quri muu hogaaminaynine faran bacid baa hogaaminaysay farantka galbeed cabdulaahi askari iyo aniga ayaa hogaaminaynay oo taliye ku-xigeen soo ahay dadku waxay yidhaahdaan oo ay nagu yidhahdaan way naga goosteen iyagaa u horgoostay dowladay leeyihin bay ku dhawaaqeen dabeeta dowladdii dambe aanu samaynaynay ugumaanaan tegin kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa MMTV waxaad ku soo dhawaataan waraysi aanu kaga hadlayno 18 May Somaliland iyo taariikhda ay ku timid duruufihii Somaliland ay soo martay dagaaladii iyo shirarkii kala duwanaa ee Somaliland lagu nabadeynayay ee lagu soo gaadhay in go'aanka maanta 18 May loogu dabaaldegaya uu noqdo mid dadka reer Somaliland nabadgeliyo barwaaqo waxbarasho caafimaad adeegyo bulsho dowladnimo iyo hanaan doorasho oo ay galeen dadka reer Somaliland ay ka soo faa'iideen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii ay soo mareen dartood ay maanta ku naaloonayaan maanta waxaan fadhinaa stuudiyaha MMTV waxaa ila jooga halkan mujaahid axmed xasan aadan oo ku magac dheer axmed weyse cadde oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee Somaliland sidoo kale ahaa dadkii ku soo dhaawacmay jabhaddii SNM ee dagaaladii cuslaa soo galay xildhibaanka waan soo dhaweynayaa oo xildhibaanadii hore golaha wakiiladana ka mid ahaa mujaahid weyse cadde bal waxaan doonaynaa dadka fahansiiso oo aad kugu bilaabo Somaliland taariikhdeedu halka ay ka timid muddadii dagaaladii u dambeeyay ee halkan ku soo gaadhay bismillaahi raxmaani raxiim iligow horta aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa inaad igu marti qaaday stuudiyaha MMTV i weydiiso wixii aan arrintaa idinku dheerahay su-aasha aad imika i weydiinayso keligeyna kuma dhammaan karto oo taariikhan anigu wada hayo maaha waa taariikh baahsan waa taariikh dheer halgankan lagu xoreynta Somaliland iyo imaatinka dublo soo noqoshada jiritaanka Somaliland waa mid taariikh aad u dheer leh kelidii aanan wadahayn badh aan anigu caruur ahaa badh aan ahaa ciidamadii Soomaaliya badh aan ahaa nin halgamayo ay ku jiro jaakaba jooga dabeetana warkaa dad badan oo iiga sii xogogaarsa waa la helayaa wixiise anigu aan ka ogahay ama aan ka xusuusan karo su-aasha iyo taariikhda aad i weydiisay ayuumaan kaaga jawaabaya anigu waxaan ku garaadsaday iligow anigoo kalaaska koobaada waxaan ku garaadsaday iyadoo dadku isku darka laysku daray Soomaaliya iyo Somaliland ingiriisku tuu gumaysan jiray iyo Talyaaniga gumaysan jiray labadii Soomaaliyood labadii wadan ee markaa gumaysiga Talyaaniga ka xoroobay qolana Talyaaniga ka xoroobay qolana ka xoroobay ingiriiska oo inaga ahayd iyadoo oo aanay dadku ku qanacsanayn ayaan anigu dee ku garaadsaday anoo kalaaska koobaadoo markaa layba qorayba ayaa waxaan xusanay iyada oo guryaha iyo meel walba lagaga sheekaynayo in aynu gacanta u gallay dowlad aan ina qiimeyn dadkiina aanay ku qanacsanayn arrintaasina ay ka timi shaqaalihii markaa shaqaalaha dee madaxda wada ahaa oo dabeetana wax aanay raalli ku ahayn kala kulmay markii labada dal ay isku darsameen xamar la tegey waxaa kale oo aan xusuusnahay anigoo kalaaska koobaada oo inqilaab dhacay oo aanu daawanayno inqilaab kama aanan garanahayn waxa uu yahay koob iyo lixdankii oo December aan malayna 12 oo dadkuna aanay aad u fahamsanayn raggii waxa fahamsanaaye arrimaha
dee tallaabooyinkaa qaaday iyaga qudhoodina cid ku raacda iyo wax u diyaaraho arrintaa maaragtay wax iska caabiga kala qayb gala aanay helinoo dabeetana wixii ay isla burbureen oo isla fashilmeen way ku keliyeysteen waxaan xusuusnay iyadoo macalimiintaydu si badheera anigoo duruusta fadhina u muujiyaan dareenkooda ah in aynu meel xun gallay oo aynu meel xun gacanta u gallay oo dhaqankii lagu kala duwan yahay oo tacliintii lagu kala duwan yahay waxaan haddana iskuulladii dhexe aan xusuusnahay iyada oo ardaydii iskuulladu ku filaan waayey oo haro oo aan secondariye ku filanna xataa la samayn oo barnaamijkiina barnaamij tacliimeed oo haru socdan aan la helin dadkiina ay soo yaraanayso sidii ay shaqada u heli jireen oo dadkii aanay ku wada qanacsanayn dowladaha jira iyaga oo tilmaamaya waa layna haystaa oo markaa dowladihii ka horreeyey kacaanka siyaad barre iyo haddii alla ku royey intooda badan ay ahaayeen dowladda koonfurta ka soo dhismay dabeetana dadku waxa ay wada dareensanaayeen oo ka sheekeynayeen inaynu gallay dabin aynaan waruhayn inaynu bad ku dhex dhacnay aynaan ku raalli ahayn inaynu la kulannay wax aynaan ku qanacsanayn iyada oo dareemadaasi iska wada jiraan ayaanu anagu ciyaal iskuul annagoo ah sanadihii 72 meelahaasna anigu iskuul ka baxayo secondariga qof waliba marka uu yar yahay mataqaanaa aragtidiisu intay qabanayso ayuunbuu dee xafidaayo la kulmaa waxaanu islaynay runtu siday tahay saan anigu garanayo wasiirkii tacliinta oo iskuulladii waqooyiga jiray oo dhan cabdirasaaq maxamed abubakar oo saaray cadaadin dabeetana dadkii ay iskuulladii ka wada yaaceen iyadoo la leeyahay boodhinada dadka tijaarta inamadooda wax ka barta waxaanay ahayd meesha dadka faqiirku ay wax ka bartaan iskuulladii oo cadaadin la saaray waxaan ku idhi calaa kulli xaal haddana xalana markii la isla galayna iyada oo aad moodo in la cadaadinayo dadka qaar oo koorska waxaan waxbarashada la yidhahdo la kala fadilayo amaba haddii 10 inanoo iskuullada waqooyi ka baxay ay koors wada helaan waraaqdii la tuurayo iyo nidaamkii adigu waxyaabo caynkaasaa ka horreeyey waxaan kacdoonadii u dambeeyey sidaasaanu anagu ciidamada ku gallay annagoo qaanica oo weynay waxbarashooyinkii la heli jiray oo la wada cadaadiyo koorsidii ay bixin jireen yurub iyo ingiriiska iyo adiyaalkure maraykanku la wada yidhi waxa weeyaan wadamo hantigoosi ahoo dad bay rabaysanayaan oo la tuuray la wada laalay waxyaabo caynkaasaanu la kulannay dabeetana ciidamadaanu gallayna waxaanu la kulannay iyada oo dadka ciidamadii soomaaliya ee aanu gallayna waxaanu la kulannay iyada oo dadka la kala naqaysanayo ila waa qarnigii siyaad barre eh oo waxa kacaan la leeyahay kacaandiid lagu kala sameeyo shaandho cusub shaandho la samaystay la leeyahay kacaan iyo kacaandiid dabeetana ninku ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado inaanu ka soo gudbahayn caqabado ciidanka dhexdiisa laga sameeyey dabeetana waxaa soo baxday 81 in ummaddii la wada dulmay waxaa jirtay dhowr iyo toddobaatan daaragtar oo daaragtaradii guud iyo kuwii ku soo xigay iyo nidaamka ahaayo dadkii tababaraa ee waddanka soomaaliyaba u shaqayn jiray oo la yidhi kacaankii la jaan qaadi waayeen iyo wax caynkaasoo loo arkay in ay yihiin qaar mataqaanaa dee siyaasadda markaa lagu dhaqaayo dadka iyo dadka la korsanayo meel marin laga maro la waayey ayaa gebigooda dibadda la dhigay 75 nin majoritygoodu amaba dhammaantood waxay ahaayeen dadkii gobollada waqooyi ka yimi ee waxbartay ee wada mataqaanaa dee mutacalimiin dalka hogaamin lahaa ee nidaamka maamulka garanayey dabeetana adduunyadu waxay noqotay xusbi heesaye iyo balaayo calama la yaacaysa ayay noqdeen ayaa mataqaanaa maamulka noqday waxa weeyaan waxa guuluudayaalba ka sharaf batay
wixii waddanka caqli yaalay sidaa daraaddeed ayaa dabeetana cadaadiskaa faraha badan leh ciidan iyo shacbi shaqaalihii dowladda meel walba wuu koray ganacsigiibuu koray dadkii ganacsan jiray dhammaan waddanka ayay dabadda uga kala yaaceen siday hantidoodii u nabad gasho waxyaabaha caynkaasa ayaa dabeetana daqdiga intaa la eg wuxuu keenay in la abuuro ururo u halgama xuquuqda iyo jiritaanka dee dadyaabaha ummadda la cadaadinayo sidaa ayay snmna waxay ka mid ahayd dadkii ama ururadii arintaa cadaadiska la cadaadiyay halganka ay u halgamayaan ummadahooda u soo banaan baxay ayay iyaduna mid qaar ka mida ahayd haddaanay ahaynba tii labaad ama tii koobaadba 1981kii 6 abril ayaa la sameeyey england baa lagaga dhawaaqay dadka jooga gobolladan waqooyiga oo neefsan kari la'aa oo waxay ka sheekeeyaan xor u waayey in yani fikirkooda xor u waayey waxa ay si degdeg ah u qaateen oo ay u taageereen ururka lagu baaqay ee sanima halgamaya dabeetana halgankaasi laba dhinac ayuu noqday dad fara badan oo mutacalimiina oo dadkii dee wax garanayay ee dabadda joogay ee afweyne uu shaandhada afweyne ay saartay iyo kuwii ciidamada ee shaandhada afweyne ay reebtay aan la doonahaynin waxay isugu biireen in ay dhammaantood snm dalladda snm u wada halgamaan waxaa ku soo biiray dad kale iyo ururo kale oo badan oo dalladaa hoos yimi 81kii adigu 82kii horraanteedii ayaa ciidamadii mataqaanaa raggii ciidankaa ee ugu horreeyey ay tallaabeen raggaa imika wax badani kama noola 3 ninna uga hor tallaabay aadan shiine iyo axmed dagax iyo maxamed kaahin baa maanta ka nool dhowr sarkaal oo kale oo tallaabay dhammaantood waxaan u malaynayaa in aanay cidi ka nooleen maxamed kaahin mooyaane haddii aan ka tago cid waa waxaan dee ilaaway oo maskaxdaydu ay ka boodayey cid aan reebay maaha si fiican dabeetana waxaa aad iyo aad looga daba tegey oo loo xoojiyey garabka ciidamada ee tallaabay ee halganka snm dabeetana u banbaxay meeshii ugu horreysay ama fieldkii ugu horreeyey ama saaxaddii ugu horreysay ee ay ka soo dagaalamaan waxaa bixisay etoobiya oo u ogolaatay in laga soo dagaalamo halkay ahayd saaxadaha waxa weeyaan dhulkan la yidhahdo reseferia ayay ahayd dabeetana anigu dadaan ka mid ahay aad iyo aad baa saraakiil badan baa iga horreysay ilaa noqonaysa mataqaanaa sanad dabadii baan tallaabay adigoo darajo noocyo anigoo darajadu aniga kabtan bay ahayd kabtan baad kaga timi Soomaaliya ayaan kaga tegay Soomaaliya ciidamadii Soomaaliya waxaan tallaabay July 12keedii 1983 sanad iyo bar kadib markii ay saaxadda dagaalka ee SNM shaqaynaysay dabeetana waxa uu halgankaasi qaatay muddo noqonaysa marka laga soo bilaabo 82 ama 81 marka laga soo bilaabo ilaa iyo 19 January marka la eego 10 sanadood waxa ka dhiman bilo marka waa markii la isubeeyay jabhadu bilaabantay 10 sano qaadan maalintii lagu dhawaaqay England lagaga dhawaaqay ayaa ku dhawaaqay bay ahayd waqtiga waxa raggii ugu horreeyay ee aasaasay SNM rag xoogaa dhowra bay ahaayeen raggii maxamed xaashi ninkii la odhan jiray cabdisalaan yaasiin ninka la yidhaahdo cabdulaahi cabdi muuse cabdiraxmaan cabdulqaadir anigu raggaasaan horta ka garanaya ragga badankoodii inay dhinteen mal malayn laakiin iminka 3 nin waxa ayaa nool cabdulaahi cabdi muuse cabdiraxmaan cabdulqaadir iyo cabdisalaan yaasiin saddexdaasaan nool way nool yihiin raggaas horta way nool yihiin raggii kale way dhinteen waxaan u malaynaya wada allaysteen raggii halkaa maalintaa wareysay ku dhawaaqay ururka SNM urur halgameedka SNM
waxay ahayd 6 abril soomaan ku lixdii abril koob iyo siddeetankii dhawaaqideedu ha January 28 baa ciidamaduna tallaabeen waay marka imisay noqonaysaa bilood waxay noqonaysaa January iyo abril 7 bilood bay waxay noqonaysaa 7 bilood 7 bilood meelaha ha ayay noqonaysaa ama 8 bilood meelaha ayay noqonaysaa ayay ka dambeeyeen adigu calaa ku xul leexal marka maalinta lagu dhawaaqay SNM laga dhawaaqay England iyo maalinta la xoreeyay dalka ee la soo galay ee ay nimanka faqash baxeen waxay noqonaysaa January akhirkeedii meelahaas ay noqonayaan waa 9 bilood oo buura waxa weeyaan 9 sanadood iyo 7 bilood miya ama 8 bilood ayay noqonaysaa 9 sano iyo 9 bilood ku dhawaad bay noqonaysaa ayay noqonayaan qiyaastaas ayaa halgankaasi uu socday dagaalada intaa dhacay kala wada qiyaas iyo kala wada mug ayay ahaayeen dhinac walba meel walba waxba hadee ka dhacay dhinac bari ilaa galbeed mar keli ama furan dagaalka loo qaado oo goob la weeraro ama xerxero la weeraro iyo mar weerar saf ballaadhana bari ilaa galbeed la qaado marka waxaan soo qaadanayaa example ka dhiganayaa 3 jeer oo ka mid ah dagaaladaasi 3 jeer oo ka mid ah oo maalin miditahay 1984 November December waay dagaalada waa la wada galay dagaalkii gudaha ee koobaad ee buuraha ayaa la yiraahdaa ragga ku dhintay halganka waxaan u malaynayaa 150 meelaha way gaadhayaan ragga waqtiga dhintay ma xaqiiqadu say tahay imiko aan halkaas soo fadhiistay maskaxdaydu ma wada sugi karto laakiin markaan imika qiyaas yar oo fudud qiyaaso ayaan mataqaanaa waxa ay noqonaysaa galbeed oo kale waxa ku dhintay rag 80 ku dhawaanaya dadkii galbeedka yani galbeed ka socday waay Hargeysa iyo eeriyadeeda ilaa Berbera nawaaxiga Hargeysa marka la qiyaaso dadkii dagaalka ku dhintay iyo intii loo dilay dagaalka maaragtay inay taakuleeyeen waxay noqonayaan dhowr iyo 80 waay qaybta dhexe raggii dagaalka ku dhintay dhowr iyo 20 may noqonayaan dhowr iyo 10 kalena taakulayn iyo nidaamkaasaa loo sii dilo waxay noqonayaan halkaasna sidaan u malaynaya dhowr iyo 30 waay 20 nin qaybta bari marka iyadana la qaado 20 nin bay noqonaysaa inta dagaalka gudaha ka dhintay sidaan u malaynayo ama berigii sheekada waay aad ku haysay aanu ku qaadanay 20 nin oo burca loo dilay gacan bay siiyeen oo iyagana burca la raaciyey iyo dad kale oo hawdka lagu laayay waxyaabaha caynkaasi markaan isu geegeeyo labada furmada kale dhowr iyo 60 ayaa raacay 80 markay galbeed ku dhintaan labada furmada kalena min dhowr iyo 30 ayaan u malaynayaa qiyaasteeda iyagaa si wanaagsan wada garanaya anigu waan qiyaasaya si fiican cidna ismalihi ka tag qiyaastaas bay dadku sheegaan inta badan ku darramalihi waa qiyaas bani aadam waay dabeetana sanadka la yiraahdo 84 dagaalka gudaha la galay qiyaas caynkaasa ayaa mesela guud ahaan faramaha oo dhan ka dhimatay dagaalo googoosa haddana ilaa 1984 yaa hogaaminayay dagaalada qof quri muu hogaaminaynin faran bacid baa hogaaminaysay farantka galbeed cabdullaahi askari iyo aniga ayaa hogaaminaynay taliye ku-xigeen soo ahayn taliye ku-xigeen baad waqtiga ahayd taliye ku-xigeenka ciidamada galbeed soo galay baan ahaa waay 7 sarkaal baa meel la socday oo aniga Turki baa ka nool Cabdisalaam Turki waay qaybta dhexe ninka lagu yiraahdo dhagaweynaha watay Maxamed Cali baa ku xigay waay koowde waay qaybta bariga Maxamed Kaahin baa ayaa hogaaminayay waay marka ku xigeenkii Saani Xusna Maxamed Cawid buu ahaa markii kale la socday Saani sheekaro marka dagaalka buuraha dadku magaca buuruhu bay maqleen bal Soomaaliland buurahaasi halkay kaga yaalaano dad badan baan aqoon lahayn oo gelinayn waxaan lagu yiraahdo dagaalada markii dhowr jeer la dagaalamay mataqaanaa dagaal googoosa meel la kala galgalay ee dagaaladina ay qabali noqdeen ama googoos ay noqdeen wax badan midho badan keeni waayeen ayaa dadka waxa lagu fikiray war inaga oo frontkan yar ee laynagu mariyay dhaafna ayaa ka wanaagsan marka buuraha waxa weeyaan buurahan lagu leedo goliska forum bari ilaa iyo galbeed marka boorame laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Jaaraa Horato ilaa iyo Mariya inta ka dhaxaysa ayaa goob la galay kamid ah goobi tahay eriyada Ceel Bardaale oo u galbeedaysa
jaaraha horta waa lasoo maray goob ay tahay sheekh iyo gacan libaax goobina ay tahay mariye iyo nageegir waaya marka dagaalkaasi waxa uu socday November awalkeedii ilaa iyo horaantii December ayuu dagaalkaasi socday dagaalka buuru muddo bil u qaatay dagaalka buurahaasi 1984 ayuu socday qiyaasta inta leegna way dhacday baan ku yiri dagaalo kale oo googoosa ayaa haddana ilaa 1988 socday mar allay baday la weeraro mar la weeraro mataqaanaa ina guuxa mar la weeraro balli cabane mar la weeraro labi sagaale mar la weeraro dabagoroyaale mar la weeraro meesha la gura bisiqa la weeraro mar duruqsi la weeraro mar balidhiig waxaasoo dhan dagaalo taalabuur waxaasoo dhan dagaalo dabeetana 1984 iyo 1988 u dhexeeyey oo intaa rag halgamaya ay ku dhimanayeen ayaa jira 1984 kana de waxa ka horeeyay halgamo dagaala ka horeeyay marka waxaasoo dhan baa loo soo maray haddana 1988 marka la maraayo 84 hadiyaan ku weydiiyo ciidanka galbeedku intee leeg baad haydeneed adigu aad ku jirtay maadaama ku jirtay waxaanu noqonaynay 140 iyo 640 iyo dheeraad adigu meelaha ayaan noqonaynay 73 si toos bay u dhinteen dad badan oo shacbiga way caawiyeen la yidhi baa dawladda la raaciyay marka arrimahaasi waa sheeko dheer kutub noqonaysa markaan ku soo gaabiyo ee barnaamij maalin laga hadlayo waxa ay noqdaan ayaynu ka warramay ayaa hadhowtaa baadii la furfuraayo waa inoo waqti kale maanta xuska 18 May wax yaroo lagu talagalo dhalinyaradeena wax ku fahamsiinayno ayaan ujeedada barnaamijkeena waa intaan dadku wacyigelino ayaan kaaga tilmaamaya war waxaas loo soo maray dhalinyaroy calankan inuu sideenay saddexda liida iyo bisha madawey ay ku dhax qortay la ilaaha illa maxamed rasuul lagu qoray wuxuu soo maray halgan dheer iyo taariikh caynkaasa dabeetana 1988 marka lagu dhow yahay ay arrintii haddana 4 sannadood marka la sii halgamay raggu ama dadku rag iyo dumarba waxa weeyaan waxa imanaya qanac niyad shab dad cusub baa intaa soo biiraya 1984 markuu dagaalku dhamaaday waxaan ku 150 baaba laga yaabaa khasaaraha iyagu inuu noqday 1500 baa nagu soo kordhay oo awaare galay oo faa'iido noqday 1500 qof ayaa dagaaladaasi ay soo kiciyeen hiyi kiciyeen oo tababar awaaraa galay markaa soo waa la halgamaya halgankii waa dhab ayay ku soo baxeen 1500 qof awaaray galeen dabeetana faramaha loo qaybiyey sidaa soo garanmaysaa si fiican waxaa dabeetana ciidamo xoog leh ayaa 1984 wixii ka dambeeyay haddana dub loo macaasho aad baa faramiyo u soo kaceen soo maaha muddo 4 sannadood bay haddana halgankii dee uu wadayo ay rifmayeen dabeetana dagaalada caynkaasi siyaasadduna dadka waxay dee dhexdooda ilaa waxay leedahay maxaa la yidhaahdaa isxoqid iyo friction iyo rag tartamaya waxa ra'yi lagu yidhaahdaa maan rag baa la yidhi waa mudaciyo afkood maan rag waa mudaciyo afkood khilaaf wuu imanayaa isdiidis way imanaysaa israacis way imanaysaa kala gaabsi kala dheereen way imanaysaa dabeetana waxyaabo badan oo caynkaasa siyaasad iyo dagaal way iska hor imanayaan marra way israacayaan dabeetana 1987 xoogaha culaysyo badan oo siyaasiya ayaa yimi heshiisyaa lasoo hadal qaaday afweyne wuxuu dhaqdhaqaaq fara badan buu sameeyey waxay noqotay waryaaraheen haddaynaan haddana halganka ama dagaalada dhiig cusub ku shubin oo aan dad cusubi u dhiman oo aan maxaa la yidhahda qolofrid amaba weji cusub dagaalka loo samaynin waxa weeyaan dee saacaddu halkan inoogu dhacaysa waxaa soo baxay oo uu ku dhaqaaqay afweyne heshiis ay Ethiopia heshiinayaan culays badan ayaa Ethiopia oo marti loo ahaa fuulay dabeetana arrintaasi waxay keentay in afweyne iyo Ethiopia heshiis ay galaan amaba heshiisyo bilaabaan ama ay galaan heshiisyadaasi muddo badan bay socdeen ilaa 1986 aakhirkiisa afweyne heshiis ayuu ku tabcay inuu la galo mingisto si la idiin soo saaro dabeetana heshiis baa laga dhex abuuray arrintaasi waxay tustay dadkii
ama halgankii asnam in khatar jirto in khatar lagu jiro oo meel laga halgamo iyo xisaabta inay arrintii isa soo xidhayso muddo gaban haddaan la samaynin mataqaanaa qaab cusub ama muuq cusub oo halganka aan loo yeelin dabeetana waxa khasab noqday haddana in waddanka gudihiisa lasoo galo markii hore buuraha la galaa la yidhi markan dadku waxa laysku qanciyey war buur dambe oo aynu ku dhimanayno doox dambe iyo cidlo dambe aynu iska helayna ma jirtee halka uu joogo barta uu ku jiro dhufayska ku jiriyo magaalooyinka uu joogo aan isugu daadano dabeetana dadka dhexdiisa ninka aan xukunka ama reshiimka aan dadka magaalooyinka dhexdooda iyo dadka dhexdooda isku qabsano dabeetana sidaa ayaad go-aan ku qaadatay ayaa dabeetana 1988 may akhirkeedii dalka lagu soo galay taasi waxay sababtay halkee la soo galay waktigaa markii burcaa la soo galay oo dabeetana waxaa la soo galay cadaadli dabeetana hargeysa la soo galay waay arrinkaa sheekadiisu mid maaha aan minka dhamayn karto nusa saace ku dhamayn karo ama barnaamij quraan ku dhamayn karo lama tirin karo dabeeta inta u dhimatay lama tirin karo waxa ay noqotay wixii uu hubhayey wuxuu rasaasayey iyo snm oo dalka soo gashay oo dadweynihii waddanka deganaa ay raaceen in wax alle wuxuu rasaasiyo hubhayey isna uu u huro waxay noqotay in ay hargeysa iyo burcaba dumaan waxay noqotay wixii magaalo iyo tuulo dhulkaa lagu lahaa inay isla dumaan waxay noqotay in la isku burburo waxay noqotay in waddanka gebigiisaba laga qaxo in loo guuro etoobiya reseferia in loo guuro magaaladii burcay dhisnayd inay tagto daroor rabaso haddii alla ku royo kama bokor inay dhulkaa u qaxaan inay hargeysa u qaxdo harta sheekha dhammaanteed ballayele dulcad dhulkaasoo dhan qaxoontigii ballayele dulcad masaajidka dibiile madaweyn meel walba dabeetana in gebigiiba magaalooyinka ay noqdaan haariba taasina waxay qaatay haddana 3 sannadoodoo dambe in la isla rafto wixii xoolo lalahaa iyo wixii dad la hayey intoo la isu geeyo in haddana 1991 january dalka laysku soo miidaamiyo january 23 ayaa suurtagal ay noqotay in haddana tallaabo lasoo qado markii hore hargeysa iyo burco ayaa laysku shubay iyo cadaadle soo maaha markan waxaa la yidhi berbere iyo baddaynu isku shubaynaa barta u dambaysa aan weli la taaban airport ka shaqeynaya dekeda uga shaqeynaysa ee uu wax kala soo degayo oo berbere ahayd waktigaa ayaynu isku bogsanaynaa anigu ciidankii berbere gelayay baan ka noqday taliye waktigaa 1991 ciidankii ugu horreeyey dalka soo galay ee berbere qabsanayey ayaan taliye ka ahaa oo la odhan jiray saldhiga 17aad marka ciidanki wuxuu ahaa 3 guuto 4 guuto ayuu ahaa iyo ciidamo lagu xoojiyey ayaa markaa dagaalka galay 4 guuto ciidamo lagu xoojiyey ayaa dagaalka galay markii laysku qabsaday berbere ee muddo laisku haystay muddo 7 casha 23 ilaa 29 markii la haystay 29 ayaa laga adkaaday ciidamadii faqashta oo laga saaray si toosa berbere looga saaray dabeetana bari bay u baxeen oo burcay u baxeen burcay weydaarteen dabeetana burco 30 baa la soo galay 30 January 1991 ayaa dabeetana burcona la qabsado ay ka baxeen 31 haddana January ayaa hargeysa haddana la qabsaday oo faqashtii iyagana laga saaray oo idinkoo berbere haysta ayaana idin burcay hargeysa haysan waxa u dhaxeeyay maalin ayaa u dhaxaysa markii berbere ay ku jabeen ayay dabeetana ka qaateen dhasha ka qaateen berbere markaanu qabsanayno xamar waa laga saaray afweyne 26 December ama 26 meelahaasa laga saaray 28 ayay xamar ku dhawaaqeen
dowlad gaar ahoo ka madax bannaan dadku waxay yidhaahdaan oo ay nagu yidhahdo way naga goosteen iyagaa u horgoostay dowladay leeyihin bay ku dhawaaqeen dabeeta dowladdii dambe aanu samaynaynay ugumaanaan tegin marka waa dowlad manifesto la yidhahdo xamar laga samaystay annaguna dee burcaanu dowladdii snm keentay ayaanu ku samaynay oo iyagaa idinka horgoostay markaasoo dowladdooda ku dhawaaqdaymarsiyaad bare dhacay iyagaa horgoostay cali mahdi ninka la yidhahdo dowladdiisa 8 May annagoo sheekh abdaal taagtaagan bay dowlad ku dhawaaqeen mabayna sugin inaanu isu nimaadno kowdhe annaguna arrintaasi waabay naga go'nayd marka horeba inaanu dowlad gaara noqonno dabeetana dee waxaabayna siiyeen janis iyagaa fursadaba bixiyeyba in la kala tago iyagaa in la kala halkan ay ka yidhaahdaan iminka in somaliland baa way goosteen dowladdaanaan la lahayn bay samaysteen 8 January annagoo sheekh abdaal taagtaagan oo sheekh abdaal sugnoo dagaalkii aanu ku jiro aanu ishaysanno cabdicasiis ayay afweyne wuxuu baxay 26 iyaguna 8 bay dowlad manifesto la yidhaha ku dhawaaqeen cabdicasiiska waktigaad abdaal isku haysateen ma ciidamadii wuxuu hogaaminayey markaa ciidamadii siyaad berri hogaaminayay kowdhe isagu afweynoo baxay buu sii dagaalamayey maalin iyo 2 maalmood kadib cabdicasiis ninka oo taliyo markaa ka ahaa berberi waqooyi oo dhan buu haysto berberi fadhiyey dabeeta ninkaasaanu ishaysanay 8 May bay ku dhawaaqeen iyagu si fiican maan fahmin soo maad fahmin dabeetana iyaga ayaa dowlad fallaaga ah samaystay dabeetana wax dambe oo laga wada hadlay ma jirtay annaguna dowladdaydii baanu samaysanay marka goormaad bilowdeen dowladda waxa 22 adigu markii dalka la xoreeyey nimankaa laga saaray ilaa burce aan laascaanoodna weliba la gaadhin ayaa dabeetana lagu baaqay nabadgelyo in la sugaabaa dabeetana lagu wadaa dee ayaa loo wada faytay in nabadgelyadii la sugo dabeetana nabadgelya daraan fara badan baa jirtay ciidamada la watay ee dhulka la soo geliyay dee ciidamo mataqaanaa ciidamo dowladeed may ahayn ciidamo jabhadeed bay ahaayeen ciidamo sharci loo dejiyey amaba dowlad ilaalinaya may ahayn marka dabeetana dee arrintaasi disciblin xumo fara badan ayaa jirtay dabeetana intii la dadaalayey ee lalahaa aan shir ku baaqno waxaanu goosanay shir dalku wada leeyahay inaanu ku baaqno 22 meelaha ama 22 February ayaa lagu dhawaaqay in shir la qabto shir qaran oo beelihii kale ee ahaa dalkii Somaliland la odhan jiray inta maqan lagu marti qaado dabeetana waxaa la marti qaaday beelihii bariga iyo beelihii galbeedka waxaa la isugu yimi shirka burco lagu yidhaahdo shirka burco ayaa la isugu yimi central committee ayaa looga baneeyey dhul meel looga baneeyo central committee baa lagu soo diray waxaa lagu dhawaaqay fadhiga in muddo baa la fadhiyey golihii dhaxaa isu yimi golihii dhaxaa 17 May 5 galabnimo u codeeyey in ay noqdaan in dowlad gaara ay noqdaan dabeetana dowladda magaca loo bixin doono iyo qaabkay noqon doonto dabbaa shirarkii dambaa lagu sameeyey ayaanta inaynu ku dhawaaqno dowlad ka madax bannaan Soomaaliya ayaa go-aankaa la gaadhay waa 5 galabnimo 17 May waana burco dabeetana 9 subaxnimo ee 18 May ayaa calankii SNM oo u eg imika calankan aynu haysano aan laakiin ahayn xidigtaa madow ma laha ayaa dabeetana waanu kala gedisan yahay saddexda liid way isweydaarsan yihiin kowle saddexda liid way isweydaarsan sida ay u kala sarreeyaan sida weydaarsan bay u kala sarreeyeen oo waxa soo horeeyey dhiigga iyo xoreynta waxa ku xigay cadaanka waxaa ku xigay barwaaqada imikana waa la kala rogaysaan u malaynaya akhtarkaa sarreeya cadaanka dhexda casaankaa hooseeya oo dhiiggii waa laga yimid baa layidhi waa laga yimi marka dee xaaladdu ay adkaata baa lagu dagaalami doonaa hoosta loo mariyey dabeetana 9 subaxnimo
sagaalkii subaxnimo ha 18 May ha ayaa calanka xafiiska gobolka ha ee Burco ha ayaa laga taagay calankii SNM oo la leeyahay waa calanka waddanku yeelanaya sutaaga goboladii waqooyi deeto magacan Somaliland weli lama bixin Somaliland waxa lagu bixiyay shirarkii dambe ee Hargeysa loo fadhiistay shirkii golaha dhexe ha ayaa lagu bixiyay waay oo Hargeysa loo fadhiistay markii doodii markii lagu doodayay ha ayaa calan la sameeyay calan yar oo cad oo dhexda green ahaa la ilaaha illa maxamed calan yar oo green ahaa oo dhexdan green ahaa cadda ha ayaa la sameeyay dabeetana oo la yiri waa calankeeni dabeetana waxa dowladda magaceedan laga dhigay Somaliland shirarkii golaha dhexe ee ka dambeeyay shirka gooniisataaga lagu goostay ayaa lagu ayaa dhawaaqay magaca lagu sameeyay imsad way markaasi ma xusuusnay laakiin shirkii labaad markii Burco laga yimi ha shirkii koobaad ee la fadhiisto ayuu ahaa maxkamadda sare halkay imika tahay maxkamaddan sare Somaliland maxkamadda sare Somaliland ha halka ay tahay ha ayaa arrinta go'aankaasi ka dhacay anigu golaha dhexan ka mid ahaa awalan Burco ha golaha dhexan golihii dhexe ee sanad baan ka mid ahaa raggii loo saaray gooniisutaaga ha ayad ka mid ahaa ayaa ka mid ahaa Xasan Ciise ayaa gudoomiye noo ahaa Xasan Ciise Jaamac oo madaxweyne ku-xigeenka noqday oo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Tuur ku-xigeenka ahaa gudoomiyaha ururka ayuu ku xigay dabeetana golaha dhexena uu ka tirsanaa dabeetana waxa loo saaray inuu gudida farsamo ee gooniisutaaga ku dhawaaqaysa ha gudoomiyaheeda noqdo marka rag badan baa ka mid ahaa oo raggii ma wada xusuusteen waay marka dawladda goorma dhisateen adigu dawladda ayaanta Burco ha beriga Burco lagu dhawaaqay baa dabeetana la dhiso dawladdina waxay noqotay madaxweynaha wuxuu noqday madaxweynaha Somaliland shirka marka arinta lagu dhawaaqay goosiga ha madaxweynihii wuxuu noqday gudoomiye sanad baa noqday madaxweyne sanad wuxuu noqday madaxweynihii Somaliland golihii dhexena wuxuu noqday baarlamaanka Somaliland ee koowaad ayuu noqday dabeetana Hargeysa la isla soo wareegay adigu calankan imika aynu ku dabaaldegayno madaxweyne cigaal ayaa dib u soo sameeyey oo dib u soo nooleeyey kii hore mido eg oo dabeetana waxa baasgareeyey golayaashii shirbeeleedkii 96-97 la qabtay ee halkan xarunta hay'adda shaqaalaha lagu qabtay waa xarunta imika hay'adda shaqaalaha dawladda ee agteeda calankan aynu maanta sidayno shirkii halkaa lagu qabtay ee madaxweyne cigaal madaxweynaha loogu doortay loogu sii dooranayay ilaa 2002 meelaha ha intuu geeri intuu 1997 ilaa 2002 loogu doortay madaxweynaha markaas calanka la cusboonaysiiyay calankana isagaa soo jeediyey oo keenay golaha calankan aynu la dabaaldegaynaa waa calanka waqtigaa la sameeyey marka taariikhda caynkaas ayaa loo soo maray ummad badan baa u dhimatay dad badan baa dee dadkii weli lama tiro kooban xaqiiqadu siday tahay khasaaraha aynu ku mutaysanay inaynu gobonnimadeennii iyo jiritaankeenii dib ula soo noqonno weli qiimaha ay nagu taagan tahay lama xadidin amaba lama qiyaasin weli lama tiro koobin oo tiro koob sax waxaa nasiib darro dabeetana dhacday iyadoo waxaasoo dhan loo soo maray ayaa haddana tartanka madaxtinimada marka ay dadku tartamayaan ayaa intoo wixii la ilaawo mar la kala furfurmaa qolooyin la noqdaa la iska hor yimaadaa walaalahay ummadda Somaliland waxaan ugu baaqayaa maanta oo ay tahay 18 May laga soo wareegay 3 sannadood laga soo wareegay waqtigii lagu dhawaaqay iyo 10 sannadood oo halgan iyo 10 sannadood oo halgan iyo dagaal ah inagoo waxa uu soo maray walaalahay Somaliland waxaan ugu baaqayaa xifaaltanka isku isxagxagashada kala furfuranka sababta ay u tahay kursi doonku in laga gudbo waxaan ku habaliyeynayaa inaynaan weli dumin ee aynu jiro wax badan oo ina soo maray wax badanna aynu soo mareen
anigu markaan qiyaaso ha naxdinta aan waddanka dabadiisa ku soo maray ha iyo taan gudihiisa ku soo maray ha waxaabaad moodaa inay taan waddanka gudihiisa ku soo maray igu fara badan tahay oo aan isleedahay berigaa wax seesa arrin iga jajabaysa oo aan dhowraya may jirin marka aad jabhadda ahayd bad marka ujeedaa aan jabhadda ahaa waay wax iga jajabaya may jirin oo aan dhowrayaaba ma jirin imika dowladnimo aan dhowrayo oo aan u baqanayo way jajabi doontaa ha ayaaba jirta Ah. naxdin siyaada ah bay igu leedahay walaalahay ummadda somaliland ee aanu wadaagno calanka ah ha ee aanu wadaagno dowladnimada ha waxaan leedahay Ah. waxa wanaagsan ha wixii aynu dhimannay ha walaalayaal inaynu wada ilaashanno wanaagsan waxaanan idinku hambalyeynaya ha maalinta ka soo wareegtay 3 guurada 18 May maalintii aynu u dabaaldegaynay dabaaldega ah aynu u soo maray halganka dheer ha walaalayaal maanta wixii nool waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay maalin wanaagsan waa sax gobonnimo wanaagsan wixii naga dhintay ha ilaahay naxariistii janno ha siiyo gaar ahaan dadkii aanu soo wada halgannay ee aanu iswada garanayno aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaan leedahay war inaga waxaan u malaynayaa dee halgan dambe ba inaguma hadhin dadkii aynu u dhiibannay ee aynu yidhi meesha inoo haya ha waa idinkaase waxa aynu ku ilaalinno aynu la wada talinno aynu garbaha halala qabto aynu ku boorinno inay calankooda iyo midnimadooda iyo gobonnimadooda iyo jiritaanka somaliland ilaashadaan waa la kaaca kufayaa maalinba tiiro ayaa inoo muuqanayso anu leenahay tiiradaasuna ha laga baxo tiiradii u dambeysay baynu maanta ka baxaynaa tiiradaa ha laga wada saaro tiiradaa ha laga wada saaro tiiradaa ha laga wada baxo waxa weeyaan ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa guul iyo gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hay hal qodbun baan ka tegey Waay. adigu dhaawac baa kaa soo gaadhay halkaad ku dhaawacantay dhibaatada kaa soo gaadhay imika lugtoo kale dhaawacii baa weli kaaga yaalla halkaad ku dhaawacanto iyo muddo intee legba dhaawacaydo halkaad tagto dhakhtarkee lagu dhigo bal si dadku ay u fahmaan qofka la hadlayo laftiisu dhibaatada soo gaadhi naf ahaantaada anigu waxaan ku dhaawacmay meel bedelwareeg agteeda ah anigoo hargeysa ku soo socda cadaadley soo qabsaday oo cadaadle xoreeyey oo aanu rag badan ahayn xoreeyeyda dadkii ciidankii xoreeyey baan ka mid ahaa taliyaashii baan ka mid ahaaye midaan anigu keliday dee xoreeyey ma ahayn si fiican marka annagoo soo soconna halkaa meel la yidhaahdo erida bedelwanaag ha ayaa oo gobolka ayaa dayuurado ha hargeysa ka kacay nala kulmeen halkaasay nagu garaaceen dabeetna anigu halkaasaan ku dhaawacmay dad badan ayaa iga dhintay waxaan leedahay ummaddii ay ka dhinteen waa dhammaan ummadda somaliland waxay ka mid ahaayeen dadkii gobonnimadeenna ha u dhintay bay ka mid oo ahaayeen diyaaradaha halkaa idinku garaacay diyaarada halkaa nagu garaacay hargeysa waxaa ku dhintay in ku dhowaanaysa 100 kun burcaynta in ku dhow intaa hargeysa ama lamida ayaa iyadana saasoo kale dee u dhimatay dad badani way ka dambeeyeen marka muddo intee legba dhaawacanayd marka anigu waxaan dhaawac ahaa sanad iyo weliba dheeraad sanad iyo 3 bilood baan oo jiiftay waxaan dhaawacmay 9kii June 1988 marka 1990 ha ayaan dib ugu soo noqday saaxadda dagaalka halkee lagugu daweynayay intaa inta waxaan Addis Ababaan tegey waxaa laygu kabay oo kama bokor waxa aan haddana indoore xashin baan joogay waxaan tegey dirdhabe waxaan tegey Addis Ababa oo cisbitaal Addis Ababa aan galay waxaan galay cisbitaal England intaasoo dhan waa lay daweynayey sanad iyo 3 bilood meelahaas ay igu qaadatay dhaawacu lugtuunbu ahaa mise meel kale kaa gaadhay lugtaasun bay ahayd xanuun kale oo dheeraad oo ay dhakhaatiirtu yaqaaniba ayaa dabeetna aan ka dhaxlay ilaa iminka marmar way dub bay u dilaacdaa waan iska daweeyaa marka taydu iyo dhaawac ay soo gaadhay waa mid sahlan rag badan baa naafo aan hadli karayn qaar baan kicin qaar baa muddo iyagoo yaalay dhintay qaar baa madaxa qaar baa dee mataqaanaa weli socodkoodu
aanu hagaagsanayn waxaan ku idhi waa dee aad iyo aad baa loogu soo dee aad iyo aad baa loogu soo halgamay khasaare badan baa dadka soo wada gaadhay dee ilaahay haynaga ciwad siiyo. aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay insha allah waxaan jecelahay dad badan baa barnaamijkaaga daawan doona si fiican kuu garanaya axmed xasan aadan weyse cadde ku magac dheer mujaahid ahaa xildhibaan ahaa somalilan dhismaheeda kaalin weyn kusoo lahaa insha allah dadku markay waraysiga intan inuu ka dheeraado way jecel yihiin su-aalo badan oo lasoo maray way jecel yihiin laakiin insha allah markan intan sii dayno wixii dambe ay dadku soo codsadaan waanu kula soo socodsiin doonaa haddii waxa weeyaan meel waliba qodob waliba wuxuu leeyahay marka lagu daadega la furfuro wuxuu noqonayaa hal barnaamij si fiican marka mid maalin lagaga dhammaanayo maaha ummadda reer somaliland waan wada salaamaya aad baad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkuna aad iyo aad ba mahadsantihi adigaa mudan waad mahadsantahay daawadayaalkaasi waxa waa axmed xasan aadan oo ku magac dheer weyse cadde oo ka mid ahaa mujaahidiintii snm islamarkaasina barnaamijkeenna aynu ku soo koobaynay 18 May iyo halka ay ka timid in kooban oo xaaladii lasoo maraya barnaamijyo kale insha allah oo taariikhdaasi lasii xidhiidhana waan idin ballan qaadayna waad mahadsantihiin